nabadgelyada geesku waxay dhisnay tiyo Ethiopia aanay bad lahayn Soomaad garan anu horta waxa leeyahay waxa haysa soo daa walla igu xidhaya wixii xaqeen sheego heede la mushkilad ma la dadkiga wanaagsan baa la xidha laakiin si aniga hayla soo galin xamar mar dambe wallahi inaan indhaha kugu dhufan mar hadii la inaga badan yahay waa la ina sitaa heshiiska aynu ka sallo wadanteena ilaa Ethiopia macna ka salayna hadduu caawa yiraahdo anigu Somaliland waana qoonsado kursiga jimciyada qurumaha ka dhaxaysa meel walba ka yiraahdo cadawgayga oo dhammaadaba dhulka ku dhufanaya aan arkaya heshiiskii inuu dhabarka ka jabinayo isagu waxaan arkay waabi Axmed baa ka jabinay waxaan leeyahay heshiiskii haddaanad halka kaga dhawaaqay Muuse imkaan ku celinaya shanta Soomaaliyeed baa u tala wuxuu yiri nabadgelyada geeska Afrika waxay ku xirantay Ethiopia badhasha haddii kala da waqtiga jawaabi Djibouti iyo Soomaaliya iyo Eritrea hadda adigu ka waran nabadgelyada geesku waxay dhisnay tiyo Ethiopia aanay bad lahayn Djibouti dabayga ka baxaya firdhiya looga yeeray hal wixii mucaarad dhabarka jabinaya Somaliland Djibouti u yeedhay halku dalku maraya hareerihii laga soo cunayo sidii keega ayaa waxa taagan ayaan leenahay daarashada aniga wata nabutuuda lahaya marka aniga waxaan wanaagin maanta aan dadkayga waan muraara dilacsan waxay heshiis la gashay dawladda Ethiopia waan qiimeeyo kor baan u qaaday bacdama Somaliland isha lagu wada hayo waxaan idhi bal horaha u socoto hasan noqotay waxaan arkayaa ninkii uu madaxweynaha igu heshiiska la galay markii horta heshiiska la wada galay la wada hadlayay inuu madaxweynuhu ina la hadlay isaguna inuu yiraahdo arrinta waan ku heshiinay yahay markiiba page-kiisa wuxuu ku qoray Ethiopia bad bay heshay halkaana kama hadlina hadda la socotaa waan u hayaa midka labaad calankii Somaliland meesha muu ay ooline madaxweynaha iga dhanka waxay ka xigay calankii Ethiopia waxa soo dhawaan isdaafiyay okay waxaan arkaya heshiiskii inuu dhabarka ka jabinayo isagu waxaan arkay waabi Axmed baa ka jabinay waxa weeyaan imika ayaan dhaweyd waa kii Soomaaliya yiri Turkiga oo wada hadashay Turkiga waa kii Soomaaliyana u yeeray markii meeshii la isugu yimid wuxuu soo dhigay khariirad 350 sano ka hor oo uu yiri waa kuwa awowyaashay baa day yaqaaniba inaan anagu badda xasbar ku lahayn marka aniga heshiiskaygii maxaa hadba fuulay Soomaalkiisa waa nin wixii si doonayay kolka u weeyay nin aniga waxiga doonayo ila saxeexanaya maaha marka madaxweynahayga hadii la sirxay oo maalintii waliba eeg waxa kaaga daran iyaga sirxay waxa kaaga daran Ethiopia anigu isaga iyaga u shaqeynay heshiiskii baan halkan ka ololeynayay baarlamaanka la horgeeyo hal laga doodo baan lahaa waliba mar labaad anu xaq waxaan u lahaa markii ugu horeeyaan oo martii hadduu iga soo saxeexday inuu marka kale Hargeysa igu yimaado iga saxeexo diyaarad baa laga celinaya ma sheekaynayo inuu baabuur wajaala kaga soo galo xaq baan u leeyahay ila qof adduunyada ku nool baan oo wadanay taa beddelkeedii baarlamaankiisa hortagay baarlamaankiisa markuu hortagay eeg baarlamaanka dood baa la geliyaa wixii maxaan ku warhadaayay heshiisiya adduunyada la soo galo halkuu iyaga uga sheegi lahaa annagii xamar nagu jahiyay oo jeeda kale wuxuu yiri maxaan ku raadaayay Soomaaliya lacagaha nagu dacwaynayso iska daayo iskuuleeyo wadooyin iyo ku samee yani anagu fudayd nagu ogeey saanu u niraahno xamar baan soo eegaysa kii kale na soo eegaysa anagu shantii Soomaaliyeed baan godob ka qaadnay Soomaad garan hal foostadu markay tacartahay malab baa dusha lagaga shubayada waxaaba macaanis hal kelmad baa waxa soo qaylo igu baxday aniga damin lahayd oo ah Somaliland waana qoonsaday baarlamaanka oo ka dooda halkii kelmad buu afkiisii kala meeraysanaya inuu yiraahdo bad laga dhintay oo laga madho dadkii ilaa xasuuqmeen ayuu rabaa hadduu bedel ahaan jiray maxaa ka kaxeeyay taasa su'aal mudan waxa weeyaan adduunyadan aniga madaxweynahaygu xaq wuxuu u leeyahay heshiiskii inuu ka laabto اختيار بولي مد الله بعد الدنيا ده مركو طاعتكو قاعدو dadkaagu ka eeg inka Saddam Hussein dadkiisi Arbeed baadleen oo ugu yeeray shisheeye ninkii loo jiray Qadaafi Arab baa ugu yeeray shisheeye ninkiisi dilaya qayladoon ma laha Soomaad garan dad inaga waaweyn oo inaga taariikh fog baa qoorta dhiibtay markay dadkoodii ka bateen waxa kamid ahayd Iraq oo dalka Kurdiyiinta marta waata ay la degan yihiin waa kuwii tarashay jeexday yiri dalkiiba oo go'san qaybtayadii waatay Iraq ku wada jeedsatay gacantay taageen waxayna war meel uma socono raalihaada Spain gobolka Catalonia waa kii goostay dawladdiiba markuu wada dhaqaaqdo war raalihaada bay yiraahdeen waan joognahay maanta anigu Somaliland haddaanahay tashanteedii Soomaaliyeed way igu wada kacay halkii kelmadeeda annaga baduna hadna liqday halkii kelmadeeda uu oran lahaa war dalkan ana aqoonsadayna meeshii kuma hayo soo ma garanaysi marka waxa weeyaan maanta anigu halistan daaqaya waad iga arkaya Djibouti dabayga ka baxaya firdhiya looga yeeray hal wixii mucaarad dhabarka jabinaya Somaliland Djibouti u yeedhay
halka dawlad deegaanka Soomaaliyeed arkayso siyaasiyiinta dalkooda iyo siyaasadda ilaashanaya iyo kursigooda mooyaane maxaan ku rahaday shacabku way ka taagan yihiin heshiiska aad bay uga taagan yihiin koonfur waadigan arkaya waa hagaaga shanteennii Soomaaliyeed ninka isaguba 9 qoomiyadood dhabarka ku sito afwal iyo diin walba leh ee doonaya kelmadda isagu yiraahdo inay wada qiimeeyaan sideebuu inagu danteena dadkeena aynu ugu daadinaynaa ifan xataa haddii Soomaaliya lagu noqonayo heshiiskaasi hadduu ina duminayo waynu ka baxaynaa ilaa bari ka maalin marka hareeraha laynagaga kicilayna dajiyayno baabaano hadda ogow dambe Soomaaliya kolkaan ugu noqonaynaa marka waxa la qaatay inagoo Soomaaliya iyo Soomaalida kale inta la xaalo walaal sida aan ugu kala tagi lahayn dhulka aynu ka shaqaynaa aynu dhahno oo heshiiskana aynu ka solo mid kale adan su'aalku weydiinaya hadalkiisi waxa ku jirtay uu baarlamaanka hor taagnaa wuxuu yiri nabadgelyada geeska Afrika waxay ku xirantay Itoobiya badhasha haddii kala da waqtiga jawaabi Djibouti iyo Soomaaliya iyo Eritrea bal hadda adigu ka waran nabadgelyada geesku waxay dhisnay Itoobiya aanay bad lahayn Soomaad garan anu horta waxa leeyahay waxa haysan soo daa sababta waxa weeyaan marxaba haddii taagantay anigu haddii heshiis haddii badda aan waayo nabadgelyada geesku aanay ugu xirantay anu imkaan leeyahay waxa haysan soo daa waxay heshiis la gashay dawladda Itoobiya waan qiimeeyo kor baan u qaaday bacdama Somaliland isha lagu wada hayo waxaan idhi bal horaha u socoto hasan noqotay waxaan arkayaa ninkii uu madaxweynaha igu heshiiska la galay markii horta heshiiska la wada galay la wada hadlayay inuu madaxweynuhu ina la hadlay isaguna inuu yiraahdo arrinta waan ku heshiinay bay ahayd markiiba page-kiisa wuxuu ku qoray Itoobiya bad bay heshay halkaana kama hadlina hadda la socotaa waan u hayaa midka labaad calankii Somaliland meesha muu ay ooline madaxweynaha iga dhanka waxay ka xigay calankii Itoobiya waxa soo dhan waan isdhaafiyay okay waxaan arkayaa heshiiskii inuu dhabarka ka jabinayo isagu waxaan arkay waabi Axmed ba ka jabinay waxa weeyaan imaka ayaan dhaweyd waa kii Soomaaliya yiri Turkiga oo wada hadashay Turkiga waa kii Soomaaliyana u yeeray markii meeshii la isugu yimid wuxuu soo dhigay khariirad 350 sano ka hor oo uu yiri waa kuwa awowyaashay baa day yaqaaniba inaan anagu badda xasbar ku lahayn marka aniga heshiiskaygii maxaa hadba fuulay Soomaalikiisi waa nin wixii si doonayay kolka u wadiyaa nin aniga waxiga doonayo ila saxeexanaya maaha marka madaxweynahayga hadii la sirxay oo maalintii waliba aag waxa kaaga daran iyaga sirxay waxa kaaga daran Itoobiya anigu isaga iyaga u shaqaynay heshiiskii baan halka ka ololeynayay baarlamaanka la horgeeyo hal laga doodo baan lahaa waliba mar labaad anu xaq waxaan u lahaa markii ugu horeeyaan oo martay hadduu iga soo saxeexday inuu marka kale Hargeysa igu yimaado iga saxeexo diyaarad baa laga celinaya ma sheekaynayo inuu baabuur wajaala kaga soo galo xaq baan u leeyahay ila qof adduunyada ku nool baan oo wadanay taa bedelkeedii baarlamaankiisa hortagay baarlamaankiisa markuu hortagay baarlamaanka dood baa la geliyaa wixii maxaan ku raadayay heshiisiya adduunyada la soo galo halkuu iyaga uga sheegi lahaa annagii xamar nagu jahiyay oo jeeda kale wuxuu yiri maxaan ku raadayay Soomaaliya lacagaha nagu dacwaynayso iska daayo iskuuleeyo wadooyin iyo ku samee yani annagu fudayd nagu oge saanu niraahno xamar baan soo yeegaysa kii kale na soo yeegaysa annagu shantii Soomaaliyeed baan godob ka qaadnay Soomaad garan hal foostadu markay tacartahay malab baa dusha lagaga shubayada waxaaba macaanis hal kelmad baa waxa soo qaylo igu baxday aniga damin lahayd oo Somaliland waana qoonsaday baarlamaanka oo ka dooda halkii kelmad waa afkiisi kala meeraysanaya inuu yiraahdo bad laga dhintay oo laga madho dadkii la xasuuqmeen ayuu rabaa hadduu badal ahaan jiray maxaa ka kaxeeyay taasa su'aal mudan waxa weeyaan adduunyadan aniga madaxweynahaygu xaq wuxuu leeyahay heshiiska inuu ka laabto ikhtiyaar buu leeyahay mid labaad adduunyada markuu daad ku qaado dadkaagu ka eeg inka Saddam Hussein dadkiisi Carbeed baa dilay oo ugu yeeray shisheeye ninkii loo jiray Qadaafi Arab baa ugu yeedhay shisheeye ninkiisi dilaya qayladoon ma laha Soomaad garan dad inaga waaweyn oo inaga taariikh fog baa qoorta dhiibtay markay dadkoodii ka bateen waxa kamid ahayd Iraq oo dalka Kurdiyiinta marta waata ay la degan yihiin waa kuwii tarashay jeexday yiri dalkiiba oo go'san qaybtayadii waata Iraq ku wada jeedsatay gacantay taageen waxayna war meel uma socono raalihaada Spain gobolka Catalonia waa kii goostay dawladdiiba markuu wada dhaqaaqdo war raalihaada bay yiraahdeen war joognaa maanta anigu Somaliland haddaanahay tashanteedii Soomaaliyeed way igu wada kacay halkii kelmadeeda annaga baduna hadal liqday halkii kelmadeeda uu oran lahaa war dalkan ana aqoonsadayna meeshii kuma hayo soo ma garanaysi marka waxa weeyaan maanta anigu halistan daaqaya waad iga arkaya Djibouti dabay iga baxaya
firdhiya looga yeeray halla wixii mucaarad dhabarka jabinaya Soomaaliland Jabuuti u yeedhay halka dawlad deegaanka Soomaalida aad arkayso siyaasiyiinta dalkooda iyo siyaasadda ilaashanaya iyo kursigooda mooyaane maxaan ku rahaday shacabku way ka taagayiin heshiiska